ku socoto dhammaan wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha ee maamul goboleedyada, ku socoto dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed, og hantidooraha guud ee qaranka, og dhammaan rugta ganacsiga ee maamul goboleedyada, og hay-adaha nabadgelyada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, og wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, og ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, og madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ujeedo kala daris rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo magacaabida guddi ku meel gaar ah. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 102 lambarkiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharci lambar 22 ee November 1985 kuna saabsan dhismaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka, markuu arkay sharci qodobka 36 farqadiisa koowaad ee qeexaya awoodda wasiirka oo ah ilaaliyaha iyo toosinta rugta ganacsiga, markuu arkay qodobka 6 oo ku saabsan xubinimada rugta ganacsiga, markuu arkay qodobka 16 farqadiisa koowaad kuna saabsan luminta ama ka dhicidda xubinimada rugta ganacsiga, markuu arkay sharci lambar ee November 24 1985 kuna saabsan magacaabida guddi ku meel gaar ah ee rugta ganacsiga iyo warshadaha, markuu darsay xaaladda cakiran ee ganacsatada iyo ganacsiga ee ganacsatada dalka sababtayna curyaamin howlaha laga maarmaanka u ah horumarinta ganacsiga dalka, markuu arkay wareegtada sumadeedu tahay 946 waaga 17 ee bishii 3 kuna saabsan kala dirista maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir, markuu arkay wareegtada wasaaradda ganacsiga ee sumadeedu tahay 308 waaga 17 ee 26 bishii 2007 kuna saabsaneed kala dirista rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliya, markuu arkay wareegtada sumadeedu tahay waaga 67 ee 25 bishii 2020 kuna saabsaneed kala dirista maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir, markuu dirsay xogaha la xiriira macluumaadka lagu gaaray go'aamida kor ku xusan ayna ii caddaatay inay weli taagan yihiin sababaha keenay go'aan ka qaadistaas, markii caddaatay laga maarmidda habeyn lagu sameeyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed, wuxuu go'aamiyey maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha 2020 waxaa si rasmi ah loo kala diray maamulka rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed ee hadda jira. waxaa si ku meel gaar ah loo magacaabay guddi gudoomiye 2 ku-xigeen iyo 30 xubnood oo metela ganacsatada Soomaaliyeed sida ku xusan shaxda hoose. 3 mas-uuliyadda guddigan waa sii wadista xilli hooleedka ganacsiga iyo diyaarinta muddada doorashada maamul hufan oo ay yeelato rugta ganacsiga Soomaaliyeed muddo ku siman 60 maalmood. magacyada guddiga
iyo shirkadaha la magacaabay. kow mudane cabdulaahi nuur cusmaan gudoomiye shirkad hormuud. labo mudane cabdiweli maxamuud warsame gudoomiye ku-xigeen somtel. cali xasan cali nuur gudoomiye ku-xigeen almuha general trading. 4 cumar cali jimcaale xubin salaam somali bank. 5 cusmaan cali cabdi xalane xubin dahabshiil bank. injineer maxamed axmed siyaad xubin premier bank. maxamed cali warsame xubin ibs bank. cabdiweli muusi xubin amal bank. luul cusmaan shire xubin nayrus furnitures. cali nuur xasan xubin safa group. farxaan xuseen xaydar xubin siwaan. fahma cali cilmi xasan xubin nubaco general trading. yuusuf cumar xubin mumin group. maxamed cabdulla xubin coastal oil. cabdiraxmaan xaas xubin xas petroleum. xuseen rooble xubin balgori. abuukar xaaji maxamuud cabdalla xubin alcarabiya company. xaaji mirax indhayare xubin gudoomiyaha beeraleyda. bashiir cabdi xubin gudoomiyaha linleyda. xuseen axmed xubin almustaqiim. cabdiraxmaan cusmaan xubin xasko. cali salaad cabdulaahi nuur xubin fatah general trading. cabdulaahi sheekh cali xubin al-miisaan. xaaji aamiin sheekh xuseen xubin maash company. cabdulaahi cali adoon xubin muxram. cabdi ibraahim xeeb xubin alxabiib general trading. muxudiin sheekh mustafa xubin danwadaag company. xasan xaashi xubin gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha. rugta ganacsiga ee gobolada